Masuliyin ay ka mid yihiin wasiirada waxbarashada iyo diinta iyo awqafta maayirka caasimadda hargaysa barasabka gobolka Maroodijeex agaasimaha madaxtooyada masuliyiin kale ayaa soo kormeeray goobaha ay ka socoto diiwaangelinta kaarka codbixiyaasha muwaadinka oo ka bilaabmay gobolka Maroodijeex masuuliyiinta ayaa markii ay kormeerkaas sameeyeen la hadlay warbaahinta dadkana ugu baaqay in si weyn looga qayb qaato codbixinta dadweynaha waxaanu halkan ku wacyigelinaynaa qofkii hore isu diiwaangeliyay inaanu iman diiwaangelinta maanta iyo afarta cisho waxa is diiwaangelinayaa qofkii aan hore isu diiwaangelin qofkii qaangaaday qofkii meel ku maqnaa qofkii laba jeer hore isu diiwaangeliyay kaarku ka gubtay kaarkii hore ka gubtay oo imka jaaniska la siiyay waxaan uga digaynaa afarta cisho inay is diiwaangeliyaan amba ay goobaha tagaan qofkii aba uu kaarku ka lumay amba hore isu diiwaangeliyay uu ka gubanayaa kaarku waayo diiwaangelintiisa hore ku taala saddexda xaafadood ee cusub ee dadka loo raray qalax malowle iyo naasahablood saddexdaasi dadku goobta u dhow bay iska diiwaan gelinayaan 14 cisho ayaa loo rarayaa goobtooda oo goob doorasho noqonaysa dadka ciddii qaangaadhay ha tagto goobta ugu dhow tusaale ahaan qalax oo kale inay tagto makhaayaba inay tagto cunaqabad malowlo kale inay tagaan makhaayada inanta naasahabloodna goobta ugu dhawee halka ku taala inay tagaan dhammaantoodba maalintii koowaad ee diiwaangelinta aad bay muhiim u tahay waa dimuqraadiyadda halka ka asaasanto waa halka qofka codka bixinaya ee dooranaya dadka uu ku aaminayo dalka iyo deegaankiisaba uu ka dooranayo marka sidaa awgeed bulshada waxa lagu wacyigelinayaa inay isdiiwaangeliyaan inay magaranaysaa goobuhu way badan yihiin qof walba goobta ugu dhow inuu tago dhowr goobood baan saaka soo marnay diiwaangelinta si fiican bay u socotaa iminka goobtii khayriyada joognaa waxa si rasmi ah ugu furmay diiwaangelintii codbixiyaasha jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan degmada Hargaysa iyo degmooyinka hoos yimaada aan degmo doorashada ahayn dadweynaha fariinta halkan aan uga dareynaa waxa weeyaan inay ka faa'iideystaan fursadda diiwaangelinta oo 5 sanadood ka bacdi ay fursad u heleen ciddii aan isdiiwaangelin ciddii dalka ka maqnayd intii qaan gaadhay waqtiga iyo dadkii hal mar wax ka badan isdiiwaangeliyay ee ay kaarku ka gubtay kaarka aynu qaadanayna macnihiisu waa muwaadinimo waxa weeyana tahay nin maxaan ku dhahday ka mid ah qaranka Soomaaliland oo codkiisa dhiibanaya una codeynaya hadhow ciddii ku munaasaba markaas isoo taagta hadii ka doorasho iyo in adiga lagu doorto xaq baad adna u leedahay in lagu doorto laakiin waxa lagu dooran doona mustaqbalka fog sida aad kaarka u qaato iyo sida aad isu muujiso inaad tahay muwaadin xaq u leh labadaas xaq ee dastuuriga ah qof aan markii hore isdiiwaangelin baa isdiiwaangelinaya iyo sidii loo sheegay dadkii uu kaarku intay laba jeer isdiiwaangeliyeen bariga dee laga kasal gareeyay kaasina ma diiwaangashana oo ganaaxiisu wuxuu kaga dhamaaday dee inuu codayntii hore waayo marka kuwaasina way isdiiwaangelin karaan laakiin dee hal mar isdiiwaangeliya weydka arka qofka fariisi baa la qaadaya waa lagu soo saaraya meelaha qaarkoodna kulay waxaan komishanka u soo jeedin lahayn meelaha aad line ku dheer yahayna in dee meel kale la dhinac dhigo A iyo B laga dhigo meelaha uu maayirku sheegayay ee dadka loo rarayna iyagana dee waa la geyn doonaa insha Allah dhankooda xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ku weelinaya wasiirka waxbarashada kormeer uu ku sameeyay dhinaca diiwaangelinta ayaa iyaguna la hadlay bulshada qof walba muwaadinimadiisa iyo dadnimadiisa waxay ku jirtaa inuu isdiiwaangeliyo coday ama ha codayn laakiin qofka jeceshahay waxaad ugu hiilin garanaysaa inaad isdiiwaangeliso wax xaq leedahay weeye inaad codaysana wax xaq leedahay weeye xaq labada xaq midna maanta ha seegin waxaan soo jeedinayaa bulshada marka ugu horeysa inay gobolka iyo magaalada uu degan yahay ayuu ka tirsan yahay taasaana looga baahan yahay inuu cidda matalaysa isaga degmadiisa uu degan ku nool yahay iyo xildhibaanka golaha wakiilada matalaya uu doorto maaha kaad u dhalatay aad ka soo jeedo maaha in lagu la carro ama tiraanu kaasan u dhashay oo tagaya ujeedadu waxa weeyaan inaad ka joogto eed ku nooshahay ka doorato ciddii ku matal lahayd marka arrinta raristu waa faashil waxna ma tarto waxaan u soo jeedinayaa bulshada hore waynu aragnay dad badan oo la raraya doorashooyinkii hore oo diiwaangelinii hore dhacayba dadka la raraya marka dambe codbixintu timaado waa la waayaa
cabdiqaadir codey honkable TV hargeysa. ma ogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai mobaylo talaagado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo lacag kugu jirto haddaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaadii asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefonkaaga kadibna geli telefonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5000 waxaad ugu diri kartaa si lacag la'aan ama bilaash wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiid lambarka gaaban ee 333